waxa uu ahaa kulan taageero iyo garab istaag lagu muujinayay musharax madaxweynaha Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani oo sanadkan kamid ah xubnaha ugu cadcad ee Muqdisho ka wada olole xoogan. Saddex tiir oo waaweyn ayuu ka dhigtay halbeeg ololihiisa doorashada, kuwaasoo kale ah amni, adeeg iyo ammaano. Dubab dhaqan, siyaasiyiin, dhalinyaro iyo haween ayaa ka qayb galay kulanka oo caawa lagu qabtay Muqdisho. Ka qaybgalayaasha ayaa sitay boorar ku xardhan sawirka madaxweyne Dani, iyaga oo ku tusmeynayay inuu yahay shaqsi u qalma xilkan kana saari kara Soomaaliya xaaladda cakiran ay ku sugan tahay. Dhaqanka, dhalinyarada haweenka kulanka ka qayb galay ayaa taageero u muujiyay madaxweyne Dani, iyaga oo xildhibaanada ka codsaday inay codka siiyaan maadaama bay yiraahdeen uu yahay shaqsi samata bixi kara Soomaaliya. mudane xildhibaan waxaa codkaaga siisaa Saciid Cabdullaahi Dani saddex shay ku sii. midda koowaad waxaad ku siisaa amni. Saciid Cabdullaahi Dani markii la doorto waxaan ka rajaynaynaa in uu guto waajibaadka iyo platformka uu noo soo gudbiyay oo ah in dalka amnigiisa guud la dhammaystiro oo si tayo sare leh la gaarsiiyo ciidanka xoogga dalka qaybihiisa kala duwan. qodobka labaad, adeeg bulsho in shacabka canshuurta laga qaado ayaga lagu celiyo. midda u dambayso oo ah in dadka shacabka Soomaaliyeed way dhiban yihiin, waxay u baahan yihiin inay codkooda dhiibtaan. wadankani wuu u baahan yahay maanta mudane Saciid Cabdullaahi Dani, waana rajaynaynaa insha Allah in uu isbedel keeni doono dadka reer Muqdisho ama Soomaali in ay maanta isbedel u baahan yihiin. waana wax aad u wanaagsan, waxaana la idinka rabaa Soomaali meel walba ay joogto. madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani codsigan u gudbinayo waxaa ka mid ah inuu ku soo talagalo dhisidda dowladdii gobolka Banaadir, sidaasay reer Banaadir caaw u taageersan yihiin. gabagabadii waxaan ku soo gabagabaynaa oo ogtihiin Soomaaliya marxalad kala guurahay maraysaa. waa inaan loo kala harin in isbeddelka Soomaaliya ka dhacayo uu ku dhaco si nabadgelyo ah, waa inuu ku dhaco si loo dhan yahay, waa in dadka Soomaaliyeed ee kala indhooba dib la isugu soo celiyo, waa in dadka Soomaaliyeed markana la mideeyo, waa in laga saaro kala yaaci iyo qalalaasi iyo qaskii galay Soomaaliya. waa in laga saaro. Soomaaliyana waxaa lagu mideyn karaa dowladdii qaanuunka, dowlatul qaanuun wa dastuur. Saciid Cabdullaahi Dani saddex qodob ayaa asal ah: amni, ammaano iyo adeeg. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay madaxweyne amni wax ka qabta. Soomaaliya waxay maanta u baahan tahay madaxweyne aamin ah oo la aamini karo. Soomaaliya waxay u baahan tahay madaxweyne profile gareeya oo dadka Soomaaliyeed siiya adeeg dowladeed. Soomaaliya maanta waxay u qabtaa madaxweyne doorasho ka qabta, madaxweyne la dagaala qof kasta oo qaranka Soomaaliyeed dhibaato ku ah gudaha iyo dibadda. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay madaxweyne xoojiyo dimuqraadiyadda, madaxweyne dhammaystira dastuurka dalka. qofka kaliya isleenahay maanta intaas oo problema Soomaaliya maanta waa ka bixin karaa. waxaan isleenahay inuu yahay Saciid Cabdullaahi Dani. maanta waxa weeye inaad ku abaalmaristaan madaxweynaha Soomaaliya oo maanta gogoshaan u dhigtay. waxaan idinka rajaynayaa inaad soo dhaweysaan haddaad reer Banaadir tihiin. ninkaan idin keenay waa nin maaragtay la soo tijaabiyay, nin bilow ma aha. marka aad iyo aad baan maaragtay waxaan u rajaynayaa inaad maaragtay codkiina iyo xuduudiinaba ku taageeri doontaan. muxuu ahaa isbeddelka iyo doorashada iyo maaragtay in doorasho dhacdo dee dowladnimada iyo dimuqraadiyaddaba wax badan bay ka taraysaa. waan taageeraynaa, waan soo dhawaynaynaa, aad baan u soo dhawaynaynaa. waa mahadsan. ana oo ka hadlayo afka koonfur galbeed ugaasida afkooda afshoo ka hadlayo una madaxweynaha musharaxa Saciid Cabdullaahi Dani una walmanin dhignay haddii reer koonfur galbeed walmanin dhignay ha dhawaayaan baarlamaankana maylanaa koonfur galbeed una hanwajeeda maylanaa Saciid doorada Saciidaasiin ka ogna haddii ilaahay idmo maylanaa un odayaashin haddii un enna maylanaa doorada Saciid doorada. hooyada federaalka marka la ilaa waa Puntland
aniguna aabihii federaalkaan ahay oo waqooyi baan ahay oodiina waxaan leeyahay annaga caawa waxaana laga dareemi karaa taageerada xaqab la'aanta ah odayaasha goobta fadhiyo saxeexayaashii baarlamaanka keenaya